السلام عليكم داوديال كسو دواده halkani waa Somali Ohio News waxay idinkaga imanaysaa magaalada Columbus Ohio anigoo waxa idin la socodsiinaya barnaamijka sida alaab nooga barateen Jamila Ismaaciil maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno khayraadka iyo shidaalka Soomaaliya hadii aan nahay Soomaalida qurbo joogta maalin walba waxa soo baxa qoraal ayaa la soo saaraa wareysi ayaa la bixiyaa gaar ahaan hadii aad maalmihii dambe aad website-eeda gashay waxaa jira in Soomaaliya shidaalkeedii uu warbixin fara badan u abuuray maanta waxa studio-ga nagu soo booqday Cabdisalaan Xaaji Ismaaciil waa aqoonyahan Soomaaliyeed alaan u kuurgala arrimaha shidaalka iyo kheyraadka dalka Soomaaliya Cabdisalaan soo dhaw maalmahan inta badan waxaa jirta company aad soo laalaabanay oo hadii aad Google xitaa shidaalka Soomaaliya ay gelisid oo wax ugu horeeyo soo baxaya uu yahay company-ga la yiraahdo Somo Oil and Gas horta waa maxay Somo Oil and Gas noo yar sheeg Somo Oil and Gas waxa weeyaan company oo abuuray nin Hindi ah waxaana laga sameeyay London markii horeysay wuxuu soo saaray ninkan Hindiga ah daraasad dheer buu sameeyay daraasadiisu waxay ahayd sidii Soomaaliya maadaama ay 25 years ay dagaal ku soo jirtay maadaama ay dib badan soo martay maadaama ay dayacan tahay maanta hantideedii banikani wuxuu quudeeyay ama wuxuu isku dayay inuu dhaqaalaha Soomaaliya afka u dhigto dabadeedna uu dawladaha waaweyn u hoosta kala galo aakhirkii markii feasibility study badan uu soo sameeyay wuxuu markaa sameeyay company-ga la yiraahdo Somo Gas and Oil Somo waa Soomaaliya la soo gaabiyay company-gaas markaa wuxuu sharciyay lana ka sharciyay April 16keedii 2013 waa sanadkii aynu soo dhaafnay sanadka markuu uu sharciyay ilaa intaas kadib markaa waxaa maartay London lagu qabtay shirkii labaad ee London Conference loo yaqaanay ee Soomaaliya la isku yeeray waxaana ka horeeyay the February 2012 markii hore la qabtay marka labada shirweyne ee London loo qabanayayba wuxuu ninkana daraasadiisu dhinac ka watay waxa loo qabanayay waxay ahayd sidii wadankan dhaqaalihiisa afka loo dhigan lahaa marka company-ga ma asaga iska leh mise dad kale ayaa la leh horta iska leh company-ga ka ahaan yaa asaga inuu asaasay waa ay sheegtay Somo Gas and Oil waa founder-ka and owner-ku waa asaga iska leh okay laakiin shirki weynihii markii la isugu yimi oo February aan dhahdo May 7 sanadkeenu soo dhaafnay markii London shirweynihii labaad ee Soomaaliya la isugu yimi isagu maadaama uu ahaa founder-kii uu iska lahaa ilaa qolo kale u dhibatay uu daraasad u sameeyay shirweynaha waxa loo qabanayay waxay ahayd sidii wadankan loo qabsan lahaa oo international cartel international mandate haysta Soomaaliya badeeda iyo barigeeda wixii shidaal ku jira loo guran lahaa ama loo sharciyeyn lahaa shirweynaha waxa ka soo qayb galay 44 dal baa ka soo qayb galay waxaana garab socday dhismaha company-ga iyo wixii san uu garab socday waxaan tusaale u soo qaadanayaa todobadii furmay shirku bishii May buu furmay sanadkii tagay isla maalinta company-ga waxa loo magacaabay Lord Howard waxa weeye waa ninka MB buu soo hayay Ingiriiska 27 sano wuxuu soo hayay xisbiga ugu dambeeyay xisbiga conservative-ka ayuu martay madax ka ahaan jiray waxaa xilkii kala wareegay ugu dambeyn markuu retire galay waxa la wareegay David Cameron baa la wareegay dabadeedna waa tuu doorashadii ku guuleystay iyadoo martay coalition government isoo dhisay martay doorashada uu ku ahaa therefore Cameron shirka ayuu qabanqaabiyay London wuxuu magacaabay ama waxa loo dhibay company-gi waxa loo Somo Gas waxa loo dhibay oo German looga dhigay ninka Howard ahaa ninkii Hindiga ahaa iska lahaa waxa ku qoran inuu leeyahay hoos baa loo qolay waxa la geeyay maartay waxa la geeyay soo ninka Hindiga ma lahayn company-ga markii hore isaga iska leh laakiin boardkii lahaanshuhuna waa wax boardkuna waa wax marka boardkii waxay doortay boardka maamulaya waxa la yiri ninkan Ingiriiska ah maamulo 27 years ka MB-ga soo ahaa bal board gudoomiyaha ka noqdo kan kalena maadaama uu tagna garaad yahay 47 years waa hawshu ku soo jiray waxana leeyahay laakiin rag isla leeyahay kaligiis ma laha waxa uu leeyahay rag waaweyn isla leeyihiin isagana ha noqdo assistant boss in German-ka ama ku-xigeenka German-ka ha noqdo maalinta iyada ahayd waxa badan baa dhacay waa silbi waxa dhacay waxay ahayd ninkan Hindiga ee maartay company-ga soo dhisay Mareykanka dacwad buu socotay halkan Mareykanka gudihiisa dacwad buu socotay oo arrimaha stock exchange oo ama taqaana tuuganimo ama khiyaano ama wax la fraud wada waxa soo dhan ah oo isu jira isaga iyo wiilkiisa ilaa 7 company baa mataqaana dacwad ku haystay oo dacwad baa Mareykanka ugu socotay Mareykanka gudihiisa ka socotay Mareykanka gudihiisa ku socotay
May 7 dacwadii baa furan halka May 7 isagii oo gudoomiyaha kambaniga ahaa ninka Ingiriiska loo dhibay May 7 isagii oo gudoomiyihii ahaa gudoomiyaha xogin loo dhigay May 7 shirweynihii Soomaalida ee London baa furmay intaas oo dhan isku maalin socdo iska garab socdo hal maalin bay wada dhaceen كل وسط كاركس. أسوأ كمبني كلام اللي يوم كان هن صوم oil and gas. وهري gas ميوسو ساري جري موح خبرة ده يولي يهجار. أوكي. نيجا كان وحوس إلا أفريتون كمبني. أفريتون ككمبني وحيكوش عليهم غاسكا oilكا معدنتا إنرجيا environmentيا انتاس بينتقلنا سوى ذا شراء. أفريقيا إيست أفريقيا وست أفريقيا دلال بدن بكسو سمي. إنجلند. أفريقيا كمبني السنة قوة القرن أشري أفريقيا كمبني طبعا كم بذاهي واشقين وياه وحاجة بدن بالسولفر مركبة ترترى كمبني ودشقين وياه هالكوارث نبى وحسن السنة أفر كوميونتي وسووا الجرانت وهلو جرانت مركو حوالها وكله فتو كيس الله بس بري وحرية something سيناريو كيسو ساس وكلام الشال كمبني وياه الله ده هاي كمبني ديسو شال معها وكمبني ويسوي إسكس وسوي ما يكمبني هذا لايك مقعد ديالك أنت هذا بدن عن محو هايتو إن ميلو بهلا عن هاي كمبني هذا ميلو بهلا ولا إنهم بيكبر الشرعي سناي كل جود ومنطقة واحد الشرعي سن أو كمان ولا وحوي أيدي ولا كمبني أيدي كمان كم شغلة قالوا كمبني أيدي هذه اللي قالوا كمان ولا إنفورميشن كصباح وحكمني ده ويست أفريقيا تامبر ليميتد ويست أفريقيا أيرون أور ليميتد براين أويل لندن ليميتد يونيون كمباني سو كمباني دي سدن waxay ku qusayaan kheyraadka in soo saarida dabiiciga ah kulligood kheyraadka dabiiciga ah kulligoodna Afrika ayay wada socdaan kullu Afrika ay focus ku leeyihiin focus ku leeyihiin balka wadamada liita special dagaalada ay ka socdaan ba marta lagu focus gareynaa in wax laga soo saaro oo dagaalada ay ka socdaan Afrikaankii kambani uu ninka aas oo ku liskooda yahay 10 kamid ah dissolver bay noqdeen okay wala xaray laba kamid ah xilligii ay dissolver noqon lahayn oo soo dhow yihiin oo xaaladooda la wada ogaaday ayuu wuxuu galiyay maartay uu resign gareeyay uu ka takhalusay waxa uu soo haray maanta labadaas uu soo haray labada u sareeyay Somagas iyo Castle African Company Limited labada company baa maanta ninka soo haray marka website-kooda markaa gasho Som Oil and Gas waxa ku qoran in dawladda Soomaaliya endorsement ay ka heleen xageebay markaas sawirka dawladda Soomaaliya xisabay ku heleen wax sharciyeena miyaa jirta baarlamaanku ma la socdaa Soomaalida anaga ma ku jirnaa xageebay arrintaas ka socotaa arrintan waxay ka socotaa kambaniga kan horta iyaga nimankan iskale inakuna waxba kuma leeyahay soo kambaniga Soomaali waxba kuma laha Soomaali waxba kuma laha marka laga eego boardka marka laga eego boardka marka laga eego investmentiga qaar galani Soomaali uu soo galayaa oo ka waa shakhsi individual isagu dadaal basamay hadduu ka qayb galay moogtahay isagu dadaal basamay moogtahay laakiin kambani dawladda markay heshiis la galayso waa in waxa jira waagi dawladdii hore siyaad barnaamij u dhaxaysay waxay ahaayeen 51% waxa lahaan jiray dawladda Soomaaliya lahaan jirtay 49% waxa lahaan jiray kambaniga lahaan jiray kambaniga waa kamar wax baarabo haasheel iyo konoco iyo waxa soo ahaan jiray iyo sheer ma garatay marka intaysa baaridan bilaabin ayaa waxa la bixin jiray percentage kala duwan inta ma shaqada la bilaabin inta shaqada la bilaabin waa lagu heshiin jiray heshiiska ahaan jirtay okay kontradida hore dhan baa la hayaa heshiiska ahaan jiray Soomaaliya mar walba waxay ahaan jirtay 51% bay lahaan jirtay xilliga annaga sheerka annaga iskala waxan foodhoonkiina la dhigi jiray haddaad ku qanacsantihiin shaqeeye qaar qaatiyo qaar martay yiraahdo course baa 50-50 bay badan dhigi jiray hay'ad la qaadana moogtahay marba ma meeshii laga helo marka waagi hore saas jiri jiray qolada tan ila maadaama ninkan Hindiga ah oo intaas soo kamar sameeyay oo wixii si wada qarxeen oo maanta ka kamaniga uga soo haray iyo keenaas magaca ku qoray kaliya ay u soo hareen isagu wuxuu la xiriiray madaxda reer galbeedka ee shirka Soomaalida qaban qaabinayay kuwii buu la hoos galay kuwii baa martaqaanaa shar kala noqday wuxuu kaliya iska shaqeynayo waa in Hindiya oo intaas soo kamar soo dhacay oo intaas soo kamar laga soo xiray oo Virginia maxkamadda uga socoto Mareykanka oo intaas oo kamariyo waaweyn oo Merrill Lynch ay kamid yihiin waaweyn ay dacweynayaan oo markay maxkamadda haystaan kaligiis uma shaqeeyaan marka ninkii wuxuu haystaa back support weyn baa ninkii u haystaa wadaabana way soo bixi doontaa moogta ka Soomaali company wax ay ku leedahay ma jiro company Soomaali wax ku leedahay iyaga iskale marka iyaga boardka iyo asagoo asaasay iyo boardka iskale intuu isagoo asaasay iyo boardka ayaa iskale iyo cidda qarsoon ee siyaasiyan taageersan marka way soo saareen percentage ay kala leeyahay hadda way soo saareen kambanigooda ku jirtaa ha say u kala leeyihiin
كمانيجا وحال 75% إياك إسكال كمبانيga iskale سوما gas and oil okay وسو كميدي هاي ninkii أساس كميدي هاي رجع الله شقينا يا behind مارتي سيناريو مارتي باك دور كجرا كميدي هين مارتي وحيلا يهين مارتي 75% أنت صاهرت و 25% بورد كي يلو قيبي بورد كي يكوا بورد في دايركتور واتقنا دور كدو وحيها بالكمبانيga controls كيسي يوحوسا marka board of directors ki iyo CEO gi intaas baa 25% la siiyay yakan waxay ka u kala qaybsadeen sidatan gudoomiyaha boardku wuxuu leeyahay 7% 7 milyan oo Ingiriiska abu gashaday waa ninka hore moogtahay ninka oo Mareykanka oo isagu CEO ga dhawaan laga dhigay isaguna 2 milyan oo Ingiriis buu gashaday marka waxa soo baxa ninka la Philip Wolf oo isaguna ah financial officer ka company oo December meelaha laga dhigay 1 milyan iyo bar oo Ingiriis ka abu gashaday حسن خيره oo Soomaaliya Norwegian ah oo ah ninka Norwegian NGO ga Soomaaliya jooga director ka regional director ka ahna 2 milyan buu gashaday oo jawaab dad soo wax Soomaaliya isaga ka jira حسن خيره ka jawaab dad marka percentage ka fiilsina wuxuu leeyahay 1.9% 2% buu leeyahay حسن خيره 2% buu leeyahay 2% markuu 1 bilyan soo saaro wuxuu heli karaa ilaa 100 milyan oo kale buu heli karaa wuxuu karaa moqta 200 milyan ay dhacday waxa kale ku jira current investment limit boardkii qaar magacoodii bay ku galeen qaarna waxay ku galeen marka daatada aus fiirso qaar magacoodii sax bay ku galeen sida Xasan Khayre iyo Philip iyo maxaan ardaa Howard iyo Robert kuwii kale ayna sheeginina waxay ku galeen Doman Investment Holding current investment limit iyo Afro Energy limit soo gormay hawlgalkooda bilaabi doonaan hawlgalkii jawaab bilaabeen waxay qabteen martaqaanaa markiiba waxa finance gareeyay oo finance ilaa lacag ma haysan عند بقول نقطة إن كان كبرنا أساسي مالته أساسي أو إحنا كل صحيح دولة صحيحة أكون كي سبب دولة يا صحيحة مركا على هذا دولة صحيحة سي عن يوك هلاي يعني إنه شرعي وشرعي أو كونتراكت أوسية دولة دي فدرال كجبرمنتيجا وساعد ورئيس الوزراء كلها أي أصحى هذا وحنا صحيح وزير كي معدنته وحنا صحيح أو وزير كي معدنته أو هوست جاي وزير كي معدنته وساعد هوست جاي دولة ده واحد على النقطة فكر كوالون كرا لكن مركا أصحين بوال إري marka maadaama uu hadda Cabdiwali ra'iisul wasaaraha uu yahay oo wixii dawladii hore la bedelay wax contract oo la galay miyaa jira dawladda cusub lama gal Cabdiwali waxa uu furan inuu yiraahdo dariiq inuu yiraahdo heshiiska aanu galay wax ka noqon golaha wasiirada fariista period or baarlamaanku uu fariisto yiraahdo heshiiska agasho wax ka noqon maadaama ay dan Soomaaliyeed ku jirin waxaana private waliba tuuga ah waliba shakhsiga bal hogaaminaya shakhsiga ka bariga iskala ee ka shaqeeyay isku xidhay London, Moscow iyo Washington. Saddexda triangle trade buu ka dhigay. Hore waxaan u naqanay iskuulada ugu soo baranay Bermuda triangle trade. Soo baranay. Laakiin maanta waxaan nahay triangle trade oo Soomaaliya hanteedii lagu qabsaday meelhaasa. From Washington oo siyaasadda guud iyo Soomaaliya ama soonta ku dul ilaalinaysa. Washington baa ilaalinaysa. Way haddana Washington ilaalinahayn taageersanayn wax shaqeyn waaya. London oo shirarkii London 1 iyo London 2 qabatay oo loo bingaraysay oo kambanadii sharciisay oo ninkiina nin Ingiriis ah uu yahay baartay Hindi Ingiriis ah oo dawladda Ingiriiska la hoos galay oo isla markaa ay ku guuleysteen waxa tartan loo galay jagada Soomaaliya yuanka ninka u jooga awlinta Afrikaana joogay East African waqti Tanzania marka waxa la tartan loo galay ninkan laga qaaday meesha laba nin baa tartan u galay nin Norwegian iyo ninka Ingiriiska ah Norwegianku waa kambaniga ugu weyn ee hadda waxa galay ee hawsha oo Soomaa oo waxa la yiraahdaa Bersea waa kambani Norwegianka oo kaalanta ugu casirsan shidaalka dadka kambaniyada baadha baba taqaana maadaama ay waxa Norway ku tartankii ugu jiraan Norwegian waxay doonayeen ninka yuan ka jooga inuu Norwegian noqdo Soomaaliya Ingiriiska wuxuu doonay ninka Soomaaliya uu noqdo inuu Ingiriis noqdo آخر حال صهري نين إنجليزا إنجليز كأكو جلست ترتين إنجليز كأكو جلست نرويج كي وحلو مثل حيي إن يكو أي كونتراد لسيو قلاد كونتراد إقاطها وسير بربحته كونتراد وحاجة قاعدتي إن لسيو 200 مليون أو أي فبراير ديسمبر بالله فبراير this year to June this year بجلان ما تقانا إن يصابران داتا information كسماية دولت كده تضبط عيال سو مركز كسماية كيالان وشوف ميالان كمبني جودا
kambanigooda london inuu ku yaalo waa ogahay laakiin xafiiskooda soomaaliya xagee ku yaala Soomaaliya xafiis kuma laha kuma laha xafiis kuma laha Soomaaliya kuma soo laha ayagoo dhan ba london laga xukumaa London baa laga xukumaa Soomaaliya kheyraadkooda maanta London baa laga xukumaa meel kale oo ay joogaan ma jirto meel kale oo ay joogaan nimanka ma jirto waa niman shakhsiyaad ah xafiiskooda laba kamid oo kala sameeyay marka ayagu maceel qodaya ma dadka qodi doona ceelasha hadhow hadii la soo helo mise waa nimanka bixin doona contractiyada oo kambaniyada hadhow xukumi doona iyagu dad wax qoda ma dadka wax qoda waa inay maraakiib leeyihiin waa aniga iyo adiga iyo wiilashan oo isu tagnay oo kambani samaysanay oo Hindiya u tagnay oo niro Mareykanka ka shaqeynay oo Hindiya u tagnay oo niri waxaan doonaynaa kontract badiina iyo dhulkiina kheyraad ku jira inaan qodno madaxdiinana aan aad korruptor aynu ka dhigno haddaynu naktar weyna xirayaan ama waa bayna dilaciyaan oo maxkamad bayna saarayaan laakiin innaka waddankeeni ninka Hindiga ee barkirtiga baa wuxuu ku guuleysay triangle trade London to Moscow to DC Washington DC inuu siyaasiyiin isku xiro oo ku guuleysto kambanigaasi dawladda Soomaaliya inay contract siiso marka wax sharci oo ayaga hadda sida uu sharcigu haysto oo xakameynaya isaga ma jiro wax Soomaaliya leedahay oo sharci ahaan wax xakameynaya ma jiro dawladdu markay u sharciyeysay 2 bilood kadib again haddana waxaa la sameeyay wax la ratification wax la yiraahdo marka waxay dhahdeen hadhowto waa meeya loo sharciyay Soomaaliya sanadkii soo dhaafay maya waxaa loo June August 6 August 6 oo sanadkii soo dhaafay August 6 hal sano ka hor August 6 baa mataqaanaa la siiyay mataqaanaa in March contract la siiyay markii contract August 6 la siiyay wata August 6 baa la siiyay agreement la saxeexay ratification baa haddana Soomaalida ay sameysay oo ratification waxaa la sameeyay government ratification waxaa la sameeyay October 7 laba bilood baa ka soo wareegtay markii laba bilood ka soo wareegtay awal wasiir baa saxeexay markan golihii wasiirada la fariisiyay saacad baa German ah waxaa la yiraahdaa dawladda go'aankaas ay saxeexday kambanigu wuxuu naga doonaya ratification aan sameeyno oo heshiiskaas u dhaqan galo October baa mataqaanaa 7 baa maartay la sharciyay labada maalmood August 6 markii heshiiska la galay London hotel ku yaala waxaa laga qabtay xaflad habeenka waxaa la isla khamrada la isla dhacay champagne ka soo soo way ku feesteen marka waxay yihiin kontract caalami ah cid heli kartaa jirin waa la sii socday ratification markii la sameeyayna markaan waxaa la sheeko symposium bay waqtiin shir bay soo wadeen shirkadaha dhan bay maanta isugu yeereen oo yiraahdeen la socod hadda waa same day marka xagga uu ratification ka dhacayo xafladuna London bay ka dhacaysaa ومارتي waa badee waa loo farsin marka tan Soomaaliyeed wax dan oo noogu jira miyaa jira kambanigan wax dan oo noogu jirta ma jiro waddankeenu waa dhacay waxaan ku soconaa sidii waddanka la yiraahdo Zimbabwe waddanka Zimbabwe hadda loo bixi waagi hore waxa loo oran jiray Rhodesia nin Ingiriis ah oo John Cedar Rhodes loo oran jiray oo Oxford University arday ka ahaa ayaa mataqaanaa waddanka yimi isagoo arday Oxford weli dhigta wuxuu arkay macdan iyo adduunkan nin university dhiganayo aqoon leh buu ahaa wuxuu markuu arkay kambanigu ka bilowday wuu noqdaa markuu fasax leeyahay waa imaadaa 7 sano ay ku qaatay ninkii inuu Oxford ka baxo mar wuxuu soo socdaa mataqaanaa Zimbabwe soo socdaa London Oxford buu soo socdaa 7 sano markuu jaamacadda ka baxay Zimbabwe ku soo noqday wuxuu dhistay dalkii dhan wuxuu u bixiyay Rhodesia waa la sinimkiisa John Cecil Rhodes buu ahaa ninkii ardaygii moogtahay waa arday student ka baxay Oxford ka baxay waddankii dhan waxaa loo bixiyay Rhodesia kadib markii uu dhintay oo debaxtiyay oo hanti badan macallin uu kala soo baxay wuxuu u dardaarmay jaamacaddu ka soo baxay inuu ugu deeqo oo ay noqoto scholarship magaciisa ugu sii la yiraahdo Rhodesia scholarship oo scholarship adduunka ugu qiimaha badan Commonwealth-ka ardayda Commonwealth-ka iyo waxa uu tartamay Mareykanka sanad walba 32 arday baa la qaataa dadka wax ku soo bartay waxaa kamid ahaa President Clinton markii Zimbabwe arrimada laga hadli jiray oo ka gaarsan jiray qolyaha kale waxay waa dictatorial waxbay laakiin Clinton lacagtooda wax ku soo bartay scholarship wax ku soo bartay Oxford kaga soo baxay Rhodesia scholarship bay waxay hadda inta saasina ku soconaa kambanigan hadda markaan soo noqono contract markii la siiyay ratification la siiyay isagu wuxuu la galay contract company la Winter Sky waa kambani Ruushka Winter Sky waxa iska leh nin Ruush oo billionaire the most billionaire Russian billionaire so Winter Sky muxuu qaban doonaa Winter Sky maalgelintu iska leeyahay Britishka in London waxa lagu sameeyay dhismihii siyaasadii iyo Soomaalidii in la sameeyay shaqada ka hadii Washington waxay ka mas'uul tahay Amazon iyo waddankii iyo nabadgelyadii guud in halka iyaduna tiraahdo dushka ilaaliso Moscow waxay ka mas'uul tahay maalgelintii marka ninkii Russia ugu taajirsanaa baa maalgeliyay Winter Sky ninka iska leh marka ninka wuxuu markaa boardka ku soo diray December heshiiska la galay marka heshiiska la galay wiilkiisii
George oo isaguna another millionaire ah oo Mareykanka wax ku bartay laakiin school farm kule maxaa dhahaa law farm kule London ayaa board markaa lagu soo daray marka boardkaas uu yarku ku jira isagu qolyahan hantida qabsay maaha hantidiisu 30% buu leeyahay 30%gaas marka waxay ka mid tahay Soma Gas and Oil waxaa uu soo haray London iyo Washington waxaa uu soo haray 45% shakhsiyaad kale isoo leeyahay ma naqaan laakiin dawal oran kara ilaa hadda waxay qabteen miyaa jira marka waxay qabteen markii hore company marka la galeen oo company-gan ay la galeen maartay uu ku soo biiray maartay ninka millionaire Russian ka ahay waxay la galeen contract waxay siiyeen Seabird company dhahdo oo Norwegian maadaama Norwegian aad ay ugu ordayeen xagga qodista company dhahdo Seabird company dhahdo oo ka ugu casrisan maanta kambaniyada olyada baara ka ugu casrisan kaasa contract waxaa lagu siiyey 20 milyan oo qaato oo Kismaayo duleedkeeda meeshii ay afarta kambani ay ka kireen 2011kii ay contract ka sii jirtay kadibna barnaamijka soo xul jiray inay baaritaan ku sameeyaan oo daatada soo saaraan daatada waxay yiraahdaan si D2 waxay yiraahdaan daatada oo mutaqaana meesha ku jirta hore loo arkay inay soo eegaan ay marka information-kiina dawladda soo xuliyaan iyakina hadda dawladda soo xuleen June bay soo xuleen waxay bilaabeen February June waa soo dhameeyeen marka company-gan wali ma howlgalin Norwegian-ka jab daatada 20 milyan bay qaateen information-kii iyo meesha wax laga soo saari lahaa daatada ay soo saareen ku dhaqaaqadiisa baa xadhay marka daatadii waa la soo saaray hadda daatadii waa la soo saaray oo daatadii waa la saxay moogtahay marka Soma Gas and Oil maadaama iyadu contractii ay haysato oo ay wadankii oo dhan iyadu maanta iyada waxaan ka mas'uul ah waxa loo asangareeyay dhul gaar ah dhulka Kismaayo duleedkeeda baa iyada loo asangareeyay ayaa waxay contract hadda ay ku bixinaysaa London waxaa la qabanayaa in October 20 October sanadkan labada bilood kale ilaa 30 contract in la bixiyo la filayaa October 20 London October 20 hotelkii lagu qabanayo daata waxa dhadhawaanaya lagu qabanayo marka London bay ku qabanaya ay waxay yiraahdeen dhamaan wixii bataqaana daneynaya daatadii information wala haya company waa very reliable waa company ugu casrisan company-guna isaga maartay hadda sugaya probability-ga inta ugu badan inuu qaato hadda marka daatada Reuters qoraal ayaa jira Jumcadii waxaa ku qoran in ayagu daatada ay soo saaraan ee dawladda la wadaagi doonaan ay dhihi doonaan muxuu hayta halkaan iyo halkaan meel hebla ayay wax ku jiraan meel hebla ayaa potential wax laga heli doonaa marka daatadaas dawladda wali ma siiyaan daatadaas waxay ahayd June inay siiyaan dawladda sanadkan ay dawladda marka ay soo dhameeyeen in dawladda siiyaan bay ahayd ma naqaan ilaa hadda inay siiyaan laakiin inta aan ognahay waxa weeyaan in ilaa 30 contract ay bixin doonaan inta bixin sanayay tahay Soma Gas and Oil ninka Hindiga iska leeyahay iyo cidii la leh intii sharka oo kale ay isla leeyihiin isaga ayaa contract bixinaya marka ilaa 30 contract baynu bisha labaad ku soo saaray Soomaaliya waxaan ku leenahay marka ma jirto marka Soomaaliya bixinaysa waa maartay Hindiga bixinaya Hindigu waa ninkii intaasoo company inta dhiso oo ninaynu aamini karnaa maaha sidee how kamayno aynu aamini karnaa ninka 14ka company sameeyay ee 10ka company oo hooseeya ay dissolver laga dhigay ee labada ku xigana uu ka qaatay mataqaana karsan gareeyay oo labada kaliya ay soo hareen waxaa kaloo hadda soo raacda Soomaaliya markii contract la galay oo company-gaas la galay waxaa la sameeyay laba company oo kale oo Soomaaliya ninkii Hindiga Samsung sameeyay in Soomaaliya lagu qaldalo doonaya waxaa la sameeyay Soma Gas and Oil Exploration waxa weeyaan waa sida Seabird Exploration ku wax baaro waaye awal de waxay ahayn adiga oo warqad MGO samaysanay bay ahayd laakiin hadda waxaa la bixin magaca inay iyagu wax explore gareeyaan bad hadda xafiis oo fadhiisamo laha waxay rabaan ayagu inay xukumaan Soomaaliya wixii gaas oo ka soo bixi doono oo cid walba oo rabta inay wax ka qabato ama wax ka hesho ayagu hoos istaagto wax kasta oo inta laga bixinayo iyaga la hoos istaagto wax sharci ah oo dawladda ay leedahay ama baarlamaanka uu soo saaray oo taas hor istaagayana ma jiraan wax iska hor istaagayana ma jira unless hadda ama Cabdiwali dawladdiisu ay shirto tiraahdo golihii wasiirada naga horeeyay arrinta waa ku qaldanay way bedeli karaan awood iyaga dalka wala ama baarlamaanku uu dusha kaga yimaado yiraahdo arrin dawladdaas sameeyay motion laga soo saaray labada arrimood kaliya lagu jibin karo waxa intaas oo kale oo dheer labada company ee la sameeyay hadda contract cidda bixinaysa ma aha Soma Oil and Gas waxa weeye Soma Oil and Gas Exploration ayaga waa company ID kale ay samaysteen inaku heshiis lama inaan gelin Soma Gas Oil in Exploration inaku heshiis lama inaan gelin marka waxa weeyaan
berri ka maalin markii dacwad timaado oo hawshii la bilaabo kismaayo duleedkeeda laga bilaabo maxaad ku dacwoonaysaa kambaniga kontraada bixiyey shaqaba kuma lihid adigu maba aadan heshiis lamaada gelin maxkamad baa laisla aadaya wuxuu leeyahay adigu heshiis bay inoo siin marka ay koonfurta Soomaaliya bas ay ku yihiin ilaa hadda inta la siiyey 22,000 oo meesh 22,000 oo kilomitir square oo mataqaana kismaayo duleedkeeda koonfurta Soomaaliya baa hadda la siiyey kambaniga kale oo sida Shell iyo hadda dawladda ku soo wareegayo oo hadda leeyahay idinka wax baar leeyahay waqooyiga Puntland iyo bay meelahaas dhulka wada banaan hadda waa wada jiraan moogtahay kuwaas baa laga yaabaa in hadda iyaga lagu mashquuliyo laakiin midka hadda kaashka ah midhaha la guranayo ee bisoo kale kaash korobka midka hadda ah waa kismaayo duleedkeeda oo hadda la isku haystaa intiin exclusive waxa la siiyay Somon Gas Oil iyadana waxay hadda siinaysaa waxay ku bixinaysaa magaalada London hadda ku bixinaysaa ugu dambeyntii maxaad ka oran lahayd tan Soomaaliya oo sheegayso dadka Soomaaliyeed oo meel walba naga daawanaya wallahi dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegi lahaa arrintan waa arrin horrible waa arrin mataqaana waa arrin muhiim ah waa arrin mataqaana arrin laga naxaweeyay waddankeena 3 jeer waxaan u joogaa shacabka Soomaaliyeed 3 jeer baa Soomaaliya lagu soo qaaday loola yimi in la qabsado mandate iyo koo wato international mandate in la qabsado baa lagu talagalay 3 jeer baa doonay in Soomaaliya u fiyo iyo mid walba sayahay markii koowaad 1492 Portugiiska iyo Isbaanishka ayaa waxay ku shireen magaalo ku taala Spain waxay u tartamayeen adduunka cusub inay qaybsadaan waxaan Yurub ka ahayn labadaas dal oo isku dawlad ahaa oo boqor ka wada dhexay laakiin kala afahaya kala dawlad sida Ingiriis oo kale to waxay go'aan ku gaareen maalintaas June 7 1494 waxay go'aan ku gaareen Eastern Hemisphere Prime Meridian waxa Eastern ka xigo Afrika badankeeda inay ka jirto iyo Asia oo dhan waxaan Yurub aan ka ahayn in Portuguese ku qaato Western Hemisphere wixii ka ahayn Spanish ku qaato waa marka 1494 already Spanish ku waa soo qabsaday oo maartay Columbus already America u tagay oo wuxuu tagay Caribbean ku tagay already uu soo qabsaday oo isagu already waa soo guuleystay laakiin si ayaan u murban oo ayaan soo qabsan baa heshiiskan ku yimid marka heshiiska la saxaaxayo xitaa Columbus waa loo yaray marka wuxuu joogay Lisbon buu yimid waxaa lagu magacaabay governorka North America iyo Caribbean lagu magacaabay oo isagu waa ku guuleystay ilaa South America qabsaday oo lagu mandate gareeyay in Spanish ku hadlaanba xageenan waxa soo loo mandate gareeyay Portugiisku inuu qabsado Portugiisku 3 wafdi soo diray qolo East Africa inagu noo soo diray oo degaama waxaan idhaahdaa Dias oo ka galay Martin Mombasa ka soo galay iyo maxaan idhaahdaa Christopher Digama oo ka soo galay Saylac ka soo digay iyo ayaa qaybteena loo soo diray West Africa qolo kale loo soo diray oo Congo loo soo diray qolana waxaa loo diray Vasco da Gama oo waxaa loo diray India loo diray 20 markab watay Calcutta magaalada magac hadda waa ka bedel hadda Google gareyso Calcutta magac kale leedahay oo Calcutta ayuu ka tagay 20kii markab ee Vasco da Gama watay 16 markab waa laga haday hindi muslimiin abaa ku kacay waxaa dawladda kale intaas taagnay cashuur baad bixin dekedaha inta ku xoreey 16 markab waa kaalay 4 markab soo wata buu ku soo noqday markii uu Isbaan ku soo noqday waxaa loo soo dhaweysay hero ah baarlamaanka buu ka hadlay laakiin haddana waa loo sii diray ciidan baa soo sii markii ciidan ma wadan East Africa kii loo soo diray wuxuu ahaa kii India loo diray Vasco da Gama wiilkiisii Christopher da Gama waxaa dilay Allah u naxariistay waxaa dilay Axmed Gurey baa dilay oo dagaal baa la isku haleelay inaka taariikhda waxaan ku soo qaadanay qolyaha taariikhda Soomaaliya ku soo baranay Axmed Gurey wuxuu la dagaalamay jiray Ethiopia 15 la dagaalamay waa loo soo hiiliyay bay arrintu waa loo soo hiiliyay ma heshiiska markaynu akhrino nimankan already mandate bay wataan si ay Soomaaliya adduunka oo dhan ku qabsadaan laakiin markii laga dilay ninkii hogaamiyahoodii oo la dilay bay ciidan kala soo dirsadeen iyo hub kala soo direen marka waxay dileen Axmed Gurey halkaas ay ku dileen Axmed Gurey midka ninkii haystay mataqaana gobolka Awdal oo Sodog u ahaa kiiba marka Harar u soo wareegay oo halkankii la wareegay oo aad u sii dhameeyay dadna Portugiisku waa noqday marka ay noqdeen oo xagga la isku noqday waxaa la yidhi Muslim fundamentalist baa Portugiis hadaan hayno soo helay oo maartay xagga Hindi waa la soo wareegay oo la soo dhacay Soomaaliya Israel Horn Africa waa la soo dhacay Congo waa galweyne waa dhul jiq ah Congo waa maartay jungle waa Congo waa galweyne warna dhulkaaga khayraadka wax naga sii yiraahdeen markaas waxa la siiyay Brazil sidaas ku helay marka international mandate maantaas Portugiisku ay wateen waa kuwa Axmed Gurey ku dilay iyaguna koodii lagu dilay laakiin lama qabsanin laakiin degul taariikheeda maanta ku faano ilaa xamar ilaa meel walba taalooyinka Axmed Gurey ka dhisan yihiin marka labaad ee mandate international loo soo qaatay waxay ahayd Berlin Conference November 1884 to February 1885 Berlin baa la isugu yimid waxaa la yidhi khayraadka yalla Congo iyo dadka Congo say masaakiin u yihiin waxaan doonayaa in la qabsado
soomaaliyana waa dad muslim ah oo maartay fundamental ah wala kala qaybiya yurub intaas soo baxay laakiin waxay ku magacaabay afshaan ilbixinayna baa shirka lagu magacaabay xataa turku goobjoog buka maraykanku xitaa goobjoog buka laakiin iyagu qayb kuma lahayn just observers bay ka ahaayeen Berlin conference waa la qabsay Soomaaliya shan baa loo qaybiyay waayo nimankii ka horeeyay maartay hore u baaray maartay explorer ka yimid mid ka mid ah Soomaaliya shibirbeera lagu dilay waxaa ka mid ah araggii mataqaanaa maartay Richard Burton oo Xaaji Cabdalla Sheekh Cabdalla oo berbera maartay xitaa Soomaaliya marmar tujin jiray labis ka soo qaad jiray harar buu yimid Sheekh Cabdalla burkay meesha harar buu socday harar markuu tagay tendaas buu joogay Ameerika marmuu maartay la yiri baa u yaray marka Ameerika la kulmay waa la weydiiyay maxaa tahay turki baa tahay lagu cadyahay khamiis iyo cimaamad iyo kafiyad wuxuu wataa waa muslim weeye quraanka ku xafisan yahay waa tukanaya waa nin ingiriis oo basaas ah markaas maxaa tahay aakhirkii nimanka waa niman dawladda mumkin ana kala aakhirkii uu sheegay waxaa 48 saacadood xuduud hararka ka baxay 40 hindiya oo tay oo dameer u rara halkaas berber uu cararay marka buugii uu qoray uu yiri 10 days in harar buu chapter web buugiisii first food stamps in East Africa agay u horeeyay Afrika dhigay buu isku magacaabay wadan jiro dawladda u tagay marka mandate kaasna wuxuu keenay in Soomaaliya marka shan loo kala qaybiyo Ingiriiska Talyaaniga Ingiriiska markuu qoy soo galay sayidku berbera ka soo deysay 12 wadaad soo xajiyo ka soo degay buu yimid Ingiriiska meeshaas kuma ogeyn 1899 kii soo galay Ingiriisku 5 years before buu soo galay wadaadkii wadada la socda xoogaa Carabina soo bartay soo xajiyo markii soo noqday Ingiriisku haysan meesha ma ahayd markaas war bulshooyin kala wada cashuur bixiyo markaas idinku markaas u digtaan cashuur ma bixiyo markaas may timaana wada kala wada cashuur iga qaadaysa markaas mid yiri Ingiriisi waa wadaad waalan marmula maalintaas marmula waa wadaad isaga bulshooyinkiisa wadaadadiisa cashuur laga qaadan wala sii daay laakiin maantaas uu talaxay halkan ka bilaab 20 sanadood buu la dagaalamay markii dagaalkii koowaad u socday adduunka in 1914 to 1918 waa 4 years ka u socday Ingiriiska inta halka waa la tumay talax baa lagu tumay jid baa lagu tumay cagadhig baa lagu tumay inta ilaa 7 gobood baa lagu tumay markii Ingiriisku mataqaana Coffin baa laga diray 1913 dulmada lagu diray markii 1918 uu Ingiriisku dagaalkii koowaad guuleysay buu warqad soo qoray Darawishti wuxuu yiri Jarmalku adduunka wuxuu weynaa banjili Turkiga adduunka wuxuu weynaa 400 oo iyo 50 sano half Europe xukumay banjili joog markaas marka ay dhulkan Ciraaq ay degan yihiin Ciraaq iyo Falastiin iyo maxaanada Syria iyo Jordan markaas waxay kamid ahaayeen noorta Turkiga kamid ahaayeen marka Ingiriiska ka gooyay intaas ay jabiyay haddaanan aydan hadda isdhiibin waa ma taqaan idin kala wada jabinaya mayba wadankan ka iskale waa ku dhimanayna askartiisii joogtay Hindiya East Africa South Africa Nigeria North Africa iyo Ethiopia intaas isku soo kiciyay iyo dhul buuxdiisa oo keenay talaxuutu maalin ma taqaana January 20 1920 waa halka ma taqaana talax lagu jabay sayidku markaa uu la cararay aabahay kamid buu haloo naxariisay awowgay dadkii maalinta Darawsh la cararay bay ahaayeen aabahay dadkii koonfurta oo baydhabo markaa degay buu haloo naxariisay Darawshtuna markii sayidku halka koonfur aaday marka sayidku markaa mandate-kii saddexaad mandate-ka labaad buu ahaa mandate saddexaad oo soo galayna London 1 conference 1 iyo London 2 وقد Soomaaliya ku soo socoto marka international mandate saddexaad ee history galaya taariikhda Soomaaliya laga dhigi doono Soomaaliya saddexdii jeer la dabcan la qabsado maalintaas yaa ogolaaday cidda ka dagaalantay ma jirtaa dawladda Soomaaliya ma taqaanaa doorka ay ka qaadatay taariikhda qori doonta taariikhda ay qori doonta Congo markii la qabsanayay iyadoo oo loo tagay oo mandate-ka Berlin conference wata boqoradii Congo waxa la siiyay nacnac karameel شوكولاتو وحياها معاك بابا قرر السياسية ضاير واحد معاه ورقم صحاحه واو صحيح لأن أفكر ما يقعنا النقطة بكا إنك أنا بالمانت عدة ما نديت كسيسي دولة حسن الشيخ وين الشيخ الله حفظه دولتيسة يعدولي بقى ما تكسوينا ما نديت كاس ما تكسونا شعب كسومالي دساس وأركيا ديالكم وبدنيا أنت كومي كان شعب كسومالي ملكسة دولة الصومال كم إذا حتى الصومالي قريب كم إذا بدل waa ku jirtaa deegaankeedu waa ku jira iyadana waa la bilaabo waxa halka fadhiyo Soomaaliya marka ay dhameystiran mandate-ka ku socdo Soomaaliya soo sheegay aad ayaa u mahadsantahay studio-ga maanta noogu timid Soomaaliya High News intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta oo aan uga hadlaynay kheyraadka iyo Soomaaliya sida aad la socotaanba kabaniga wuxuu bixin doonaa konturaadyo ku saabsan inuu qaybiyo kambaniyada kale bisha
October 20-keeda 2014 wixii ka soo cusboonaaday wixii ka soo baxana dib ayaan idin la soo socodsiin doonaa mar kale intaas ayaan kaga tagayaa waa anigoo ah Jamiila Ismaaciil